كقدر دجالو دمشق يا داوع دليل يوم maalintii shalay ahayd ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxa shir jaraa'id uga hadlay amuurta dagaalkaas taliyaha saldhigga ciidanka booliiska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Canjeex waxa uu na sheegay in macawiisleedii shalay weerarka ku soo qaaday Jowhar ahaayeen kuwa dhibaateynaya shacabka degan deegaanka isla markaasina ay aqbali doonin in ay sii wadaan dhibaateynta talaabo sharci waafaqsan ay ka qaadi doonaan waa sida uu hadalku u dhigay taliyaha saldhigga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Canjeex niman waxa jira tuuga oo aan soo qabanay maalmo dhaweeto oo burcada oo baaranaya gaadiid iyo shacab intaba dhibaateeyay oo magafaa waxay sameeyaan dadka waxay ku sameeyaan yani maaragtay bacay ku shiilan waxay ku sameeyaan waa jirdilaan waxay ka dalbadaan dadkoodii lacag ka dalbadaan haddii aysan hayn akoonka furay ilaahin EVC furay leeyin akoonka furay leeyin intaas markay ka waayaan waxay sameeyaan ciidoodii ciidada waxay leeyihiin cid markay wacaan markaas ka bacdi idoo laga ooyinsiyahay oo la qaylisahay lacagta loo tuura waa magafayaal maahan qabiil maahan macawisley waa ciidan sharaf leh oo wanaagsan oo yani maartay ciidamada qalabka sida la shaqeeyo nimankan maahan macawisley waa shufto waaye shuftana waxa wax ka qabasho waxaan male waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka reer Jowhar oo fursadan ka faa'iideysanayo inay nagala shaqeeyaan dadka shuftada oo dhibaatada ku haya oo gaadiidka u safraayay raashinka u qaaday dadka masaakiinta oo masaafirka waday dhibaateeyahay marka saadarteed iyaga qoladan soo weerartay oo tuugtaana waxaan uga digaa inay yani maaragtay ay ka waantooban waxba ay kula jiraan cid allaale cid shuftaa ee wada gasho ama uma dhibaataysanay waxa u dambeeyay saldhigga booliiska ee maxkamadda waxay arki doonaan iyagoo ka tinaysan maxkamadda hortaaga waxay arki doonaan iyagoo saldhigga ku xiran oo bilaa qoray waxaan idin sheegaa cid allaale cid isku daydaa inay yani maaragtay amnigan iyo ummadan yani maaragtay nabadgelyada iyo badqabkeeda carqalaysanay tilaabo ayaan ka qaadin haddana ciidamada qalabka sida maamulka gobolka steedka dhamaanteen waa u midoobayna waana iska dhicinayna waxa kale oo sheegay kuwana qoryaha ay tuugu soo qaateen oo yani maartay laga soo qabtay waxa kale oo jira nin dad dilay oo mashiidiya oo shalay ciidamadeen laayay oo qayb kamid ah dilay aaxiran waad aragteen inuu maleeyahay soo dhaawac hadda istaan geedon hadoo leeyahay insha Allah waana maartay tilaabo ayaan ka qaadinaa cid allaale cid isku daydo waana kuwana qoryiin waad aragteen saxaafadda oo soo bandhignay marka saadarteed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad cid falkaas tuuganimo ku jirta ka waantuudo cid aan ku soo qabanay tilaabo ayaan ka qaadinaa shacabka gaadiidleyda iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Shabeelle gaar ahaan degmada Jowhar waxaan leenahay in soo ogeysiyo tilaabo ka qaadina meel alaameed ku baartaan waa soo qabanina oo soo xiriirina dollar insha Allah aad u mahadsantiin xiriir aan la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha macawiisleedii shalay dagaalka kula gashay ciidanka dawladda gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle oo aan la xiriirnaa ayaana inoo suuragelin waxaase xusid mudan in ay hadda jirto waan la xiriirta baajinta dhiig hor leh oo ku dhex daata dagaal dhex mara ciidamada dawladda iyo kuwa macawiisleeda oo u hubeysan difaacyada danaha reerkooda Sahra Cabdi Xuseen warbaahinta City Jowhar